maanta waxaan halkan isugu nimid madashan oo meherkii Hodan Cabdiraxmaan iyo Maxamed Alta waxaanu leenahay kuwii isku waara ubad khayr qaba kala helaan ayaanu leenahay ilaahay ka dhigo wassalaamu calaykum tasriiq waxaan halkan isugu nimid maanta meherka walaalkeen Maxamed Alta Hodan Cabdiraxmaan in aanu mataqaanaa ka qayb galno oo aan la qaybsano farxadda ay u galiyaan marka wax kale loogama baahna inaan duceyno baa looga baahan yahay waan niraahdo wiil iyo caano waxaan leeyahay walaalkayga qaaliga Maxamed Alta iyo walaashayda qaaliga Hodan Cabdiraxmaan dheere inuu ilaahay ka dhigo kuwa ku barakaysta waxaanu gabadhi caano ilaahay kala siiyo hambalyadoodana kuleyto si qaasatan ayaan ugu soo diyaariyey gabadhoona kuleyto TV-ga ayaad ka daawan doontaa annaguna waxaanu leenahay aamiin aniga waxaan dhahayaa mabruuq labada isku waabta ilaahay iga dhigo anigoo ku hadlaaya cali talyaani saaxiibkiis waxaan leeyahay labada isku waabta ilaahay iga dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan nimid ameerkii walaalkeen Maxamed Alta iyo walaasheen Hodan Cabdiraxmaan waxaan leenahay mabruuq labada isku waabta Allah idinka dhigo laakiin has I don't know about that but surprise inay noqotona waa laga yaabaa so inshallah we'll see مبروك وحاولت طبعا محمد آل كلمة اسبوع كذا وصدق شيخاش يولعكي إن عليكي آلتا حلي هاي إلهي يسوكين إلهي يسوكين وانيو إلهي يسوكين ورابيو إلهي يسوكين دغو ويلي عانو جوري عانو مركز ambali يا ألتا يا صاحبك ألتا إلى آخره وغدله همبليرو حاجة كتمت كشكي لابس لا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta halkan waxaan isugu imaanay meher qiimeeya qaayo badan leh oo ismehersanayaan laba qof oo muslimiin ah meherka ugu qiimaha badnaa ilaahay waxaa ugu baryanaa kuwii isku raaga ubad khayr qaba ilaahay siiya assalaamu calaykum waxaan aad habbi ugu nahay maanta meherkii ka dhacay magaaladan Minnesota ay isku mehersanayeen Hodan Cabdiraxmaan iyo Maxamed Alto waxaan waligeed wada sugaynay aan habbi ku nahay aan ku faraxsanahay waxaan leenahay ilaahay khayr ka dhigo kuwii ubad khayr qabo oo isku raago Allah ka dhigaan leenahay maanta ugu tagniyeenno munaasabadan khayrka badan oo walaashii Hodan lamaanaha Maxamed ugu talagalay waxaan leenahay wiil iyo caano walaalkay Axmed waa kana dadsan waa hadlay maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aynu dhisay qoyskii Alta iyo Hodan waxaan leenahay markaas noqdo kuwii isku waara waxaan ugu duceynayaa ducadii nabiga ugu duceyn jiray qoys cusub oo liso بارك اللهم بارك عليكما وجمع بينكما في الخير إلهي كل دور نور لك غير hambalyo ayaa idin leenahay maanta halkan waxaan uga hambalyaynayaa walaashay saaxiibadday fanaanadayda qaaliga ah iyo fanaankii aan ka dhicin Maxamed Alto oo maanta meherkooda ku dhacay magaalada Minneapolis waa maalin jimca waa maalin laga horeysa wareerna sabciya ma sha Allah wiilal hambalyaynaya walaalkay walaashay qaaliga ah Maxamed Alta iyo Hodan Cabdiraxmaan hambalyo ayaan leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta halkan waxaan taaniyeed meherkoogii ka dhacay magaalada Minneapolis ugu dirayaa walaashay Hodan Cabdiraxmaan Cusmaan Hodan Cabdiraxmaan dheere mahashada codka qonka Soomaaliyeed Hodan Cabdiraxmaan dheere iyo saygeeda saaxiibkii qaaliga Axmed Cali Ducaale oo ku magac dheer Alto oo leeyahay labadii isku waara oo ubad khayr qaba kala hela ayaan ilaahay idinka baryayaa waxaan leeyahay wiil iyo caano gabar iyo caano ilaahay ku isku waara idinka dhigaamiin واجد كعليو كل يحيد قد له هنوي قد له هنوي مرنا واكو يا غير ماضي عن كورينو قوها عاد قوها
haddii aan gurayno kawaha uculaate gurigiina sharafale kaladiyo nimciyo khayr samiriyo dulqaadkood kullahayda siiye gabdha iyo wiilalba hela noqda kuwa ka daadsada noqda kuwa ka daadsada gurigiina sharaf kale kaladiyo nimciyo khayr samiriyo dulqaadkood kullahayda siiye gabar iyo wiilalba hela noqda kuwa ka daadsada noqda kuwa ka daadsada noqda kuwa ka